musharax xaaji maxamed yaasiin oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu yahay mid u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Puntland doorashada lagu wado inay dhacdo bilowga sanada 2014. xaaji maxamed yaasiin oo ra'iiska u soo taagay laba mar xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayaa sheegay inuu wax ka bedeli doono maamulka Puntland hadduu ku guuleysto xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. waxaan go'aansaday maanta oo taariikhda sana inaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanka Puntland inaan ogeysiiyo inaan isu taagayo haddii Ilaahay idmo tartanka madaxtinimada. barnaamijkayga waxaan asaas uga dhigay 4 tiir baan uga dhigay. tiirka ugu horeeya waxaan ku magacaabay n oo u taagan musaaraxa u taagan. waxa way ummaddu haday wax kala sheeganayso qulubtooda ay wax kala galaan way kala irdhoobaan ama khatar ugu jiraan in ay kala tagaan tilaabada ugu horeysa oo dhiig celiska ah waxa weeye in musaaraxo dhexdeeda loo sameeyo. barnaamijka labaad oo aan ku dadaalayay sanadka hore waxay noqonaysaa waa midnimo waxay timaadaa marka musaaraxa la helo. tiirka saddexaad inaynu dhisno oo ah maamul wanaag. tiirka afraad marka wuxuu noqonayaa waxa weeye waa mashaariic ama horumarinta dhaqaalaha weeye. sidaan ogsoonahay Puntland 15 sano madax kasta oo soo marta waxa ay ku ekeed dariiqa dheer dariiqa gaalkacay ka yimaada ilaa iyo Boosaaso taga. dariiqa labadiisa dhinac midig iyo bidix waxaan filayaa madaxweyne soo booqday inuusan jirin. waxaan dadka kaga duwanahay waxa weeye mashaariicda aan doonayo in la hirgeliyo ayaa waxa u xoog badnaan doona meelaha la dayacay. musharaxu shirkiisa jaraa'id uga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin ammaanka, deegaanka iyo adeega bulshada. sidoo kale wuxuu baaq u diray ismada, xildhibaanada iyo maamulka hadda talada haya ee uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiraxmaan Furoole. waxaan nasiixa u soo jeedinayaa waxa weeye xildhibaanada hadda jooga iyo kuwa soo socda iyo ismada gaar ahaan ismada waxaan rajaynayaa waxa weeye inay soo magacaabaan xildhibaano aqoon leh, tayo leh, daacada Ilaahay ka baqaya. xaaji maxamed yaasiin ayaa ugu dambeyntii shirkiisa jaraa'id ku soo gabagabeeyay sida uu wajihi doono deegaanada Sanaag iyo Cayn uu sheegay inuu asagu yahay shakhsiga ku habboon ee arrimahaas xalka keeni kara. iyagoo doonaya oo raba inay dhisaan Puntland bay yimaadeen oo iyaga dhistay. haddii qayb ka mid ah ay tiraaho annaga gaar u baxeen waxbaan dhisanaynaa dadku asagoo xora ayuu dhashay. nin la adoonsan karaa ma jiro. gacan baan ku siinaynaa qof kasta oo doonaya inuu si gaar ah u istaago wax dhisanaya. laakiin annaga nagu xiran tahay dadka inaanu u helo kalsooni sidaan u mideeno dadkii magaranaysa ehelka ahaa. anigu waxaan qabaa waxa weeye inta murashaxiinta ah inaan anigu noqonayo midka isu keeni kara dadka kala irdhoobay laana 75% ana khaatuma ah. musharax xaaji maxamed yaasiin ayaa sheegay inuu ka mid ahaa asaasayaashii maamulka Puntland sidaa daraaddeed inuu rajo weyn ka qabo inuu ku guuleysto xilka madaxtinimada ee maamulka Puntland. Cabdi Ibrahim Cali Dheere, On Cable TV, Nairobi.